soo dhawaada daawadayaal afur wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa fiidnimadan aad halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu door korona waxa ugu waaweyn ciidamada beesha Ciise ayaa gubay gaari ay lahayeen maamulka Somaliland haddaba sababtu maxay tahay oo gaarigaasi loo gubay halkee ayaa si lagu gubay muuqaalkan ayaan saaxiibayaal kugu la wadaagaya sidoo kale qodobada xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa caawa saraakiisha maamulkaasi beesha Ciise uu u sameeyay kulan afur wadareed ah haddaba daawadayaal kulan afurkan wadareedka ah oo uu hore ugaaska u ballan qaaday uu sii socon doono inta ka harsan bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa saaxiibayaal sidoo kale halkan idin kula wadaagaya qodobada kale xiisaha leh halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah banaanbaxyo waaweyn ayaa maanta ka dhacay magaalada Boorame yaase wax ku naqday yaa dhibaato xooggan loogu geystay sidoo kale ayagoo faahfaahsan muuqaalkan ayaan kugu la wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan saaxiibayaal halkan idin kula wadaagaya ay soo dhawaada halkan aad iga daawanaysaan waa YouTube-kayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeysay fadlan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siin share garay oo saaxiibada la wadaag mahasani daawad hagaag aynu ku bilaawno qodobkeenu ugu horeeya haddii aan fiiriyana ciidamada beesha Ciise ayaa gubay gaari ay lahayeen maamulka Somaliland kadib markii gaarigan la sheegay in ay goob ay isku hor fadhiyaan ciidamada beesha Ciise iyo waliba sidoo kale maleeshiyaadka beesha Samaroon iyo beelaha Gudbursi balse maamulka Somaliland ayaana caro xooggan ka muujisay kadib markii gaadiidkan lagu gubay waa markaasi gaarigan ay lahayeen laga gubay ciidamada geesiyaasha beesha Ciisena ay ku baxeen ciidamada beesha Ciise ayaa maalmihii dambe waxa ay rondooyin adag iyo waliba sidoo kale howlgallo waaweyn ay ka wadeen deegaanka Gubanist waa markaasi aan raadi maamulka Gubanist iyo deegaano iyo tuulooyin kala duwan ee hoos yimaada ayaana waxa dhacday in ciidamada beesha Ciise gaari ay ka shikiyeen ayna ku gubeen kadibna la ogaaday in maamulka Somaliland uu lahaa gaarigaasi haddii aan fiiriyana ciidamada beesha Ciise ayaa maanta gubay gaari ay lahayeen ciidamada maamulka Somaliland kadib markii uu ka dhashay muran iyo waliba sidoo kale xiisad ka taagneed deegaano u dhow Boorame wararka aan helayna ayaa sheegaya in falkan uu yimid kadib iska horimaad iyo waliba sidoo kale cara ay ka dhalatay khilaaf soo jiitamayay oo dhawaanba halkaasi wada degay ay ku dhaxmareen ciidamada beesha Ciise ayaana gaarigan ay markaasi ay gubeen kaas oo awooday hub noocyadiisa kala duwan iyo waliba gaari uusan u soconin ayaa la sheegay beesha Samaroon balse laakiin maamulka Somaliland ay lahaayeen balse beesha Ciise oo iyagana war ka soo saaray arrinkaas ayaa ku tilmaamay in Somaliland iyo beelaha Gudbursi iyo beesha Samaroon bay yihiin hal taasina ay keentay in ciidamada beesha Ciisena ay ugaarsi ba'an ay ku hayaan kadibna ay ka dhalatay in gaarigaasi la gubo gaarigan ayaana hub kala duwan uu saarnaa taas oo loo badinayay in ciidamada markaasi maamulka Somaliland ee hubkaasi loo waday balse beesha Ciise waxa ay sheegteen guul weyn ay ka gaareen maleeshiyada beesha Samaroon oo ay ku tilmaameen in gaarigaasi ay iyagu markaasi ay wax ka lahayeen beelaha Gudbursi waliba sidoo kale beesha Ciiseba maalmihii dambe waxa ay dagaal xooggan markaasi uga dhaxeeyay gobolka Awdal iyo Siril taas oo xaaladdu ay sii noqonayso mid cakirnaan ay sii muujinayso maadaama dagaalka halkaasi ku socdo uusan markaa bilooyin uu sii dhaafay taas oo ay sii noqon karto mid xaalad markaasi aan la qiyaasi karin ay wali halkaasi ka taagnaato Awdal State iyo waliba sidoo kale maamulka Gubanist ayaa labadan dhinac ay markaasi doonayaan inay iska garab dhisaan walow aysan u muuqan mid markaasi aysan suurtagal ahayn marka loo fiiriyo beelaha maaragtay Gudbursi maamulka Awdal State ay raadinayaan waxa kaga dhow maamulka Gubanist oo ay markaasi noqon karto mid si degdeg ah oo aqoonsi uu ka helo maadaama odayaasha ugaaska iyo waliba sidoo kale waxgaradkan ay si weyn ugu raadinayaan sidii ay ugu dambeyn loo aqoonsan lahaa maamulka Gubanist dhanka kalena haddii aan fiiriyano qodobkeena kalena ciidamada beesha Ciise abaanraade ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa caawa mar kale saraakiisha ciidamada beesha Ciise u sameeyay kulan afur wadareed ugaaska beesha Ciise oo hore kulan afur wadareed dhalinyarada u sameeyay ayaana markan saraakiisha ciidamada beesha Ciise u sameeyay isagoona uu ku dhiirigelinayo maadaama lagu guud jiro bil barakeysan ee Ramadaan 10kii dambana la gudgalayo ama markaas la gudgalayba oo hadda gabagaba uu ku sii dhow yahay
ciidamada geesiyaasha beesha Ciise iyo weliba sidoo kale saraakiishooda ugu sarsareysa ayaa caawa kulan afar wadareed loo sameeyay kulankan ayaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan gudoomiyihii hore iyo weliba sayrac iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaana madasha ku sugnaa iyagoona si weyn ay u soo dhaweeyeen in kulan afar wadareedkan loo sameeyo saraakiisha ciidamada mid ka mid ah saraakiisha ciidamada beesha Ciise oo hadlayna waxa uu sheegay in ay ka filayeen reerkooda waxa ay u sameeyeen intaan iyo in ka badan maadaama beesha Ciise ay markaasi ay doonayso isku xirnaansho iyo isku duubni iyo in hal dhinac la isugu soo horjeesto ayayna markaasi ka shaqeynayaan caawana kulan afar wadareedkaasna sidaas ayuu daarnaa oo beesha Ciise dhalinyaradooda loo sameeyay haddii aan fiiriyana ugaaska beesha Ciise ayaa caawa kulan afar wadareed u sameeyay saraakiisha ka tirsan ciidamada beesha Ciise kulankan ayaana lagu markaasi falanqeynayay xaaladda amni ee gobolka ciidamadan ayaa sidoo kale beesha Ciise ayaana uga markaasi oo kamidna ay markaasi ahaayeen dhalinyarada markaas saraakiisha ah ee kulankan afar wadareedka loo sameeyay waxa uu markaasi ujeedkiisa ugu weynaa uu ahaa in lagu dhiirigeliyo ciidanka sidoo kalena ugaaska beesha Ciise uu ku xaqaato saraakiishan ciidamada ee loo sameeyay kulankan afar wadareedka ah ayuu sidoo kale ugaaska hore u sii sheegayba inuu sii socon doono ilaa dhamaadka bisha barakeysan Ramadaan iyadoona saraakiisha ciidamada ay heleen gunooyin ay dadka markaasi qurbo joogta ah ama dadka markaasi beesha Ciise ka soo jeedo ee markaa ku sugan dalka dibadiisaba ay kulan markaasi ama lacago oo ay u soo direen sidii loogu dhiirigeliyo ciidamada geesiyaasha beesha Ciise sidoo kale kulankan ayaana saraakiisha u gudbiyeen in xaaladda amniga ee gobolka SL iyo awdalba ay yihiin kuwa aad u hagaagsan iyagoona maamulka guwanisteedna ay hirgelin karaan haddii ay sidaan kusii socdaan sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan ciidamada maleeshiyada beelaha Gadabursi iyo beesha Samroomba balse laakiin uu sheegay in ka hortag weyn ay sameeyeen iyagoona ay duulaano kala duwan ay soo qaadayeen maleeshiyada beesha Samroon saraakiishan ayaa sidoo kale laga dhageystay xaaladda guud ee gobolka iyagoona markaasi tilmaamay in aysan hadda wax kacsanaan jirin oo mararka qaar ay maqlayaan rasaas goosgoos ah balse laakiin ciidamada beesha Ciise ay guusha mar walba dhankooda ay tahay sidoo kalena ay ka guuleysteen maleeshiyada beelaha Gadabursi iyo weliba sidoo kale beesha Samroon iyo maamulka Somaliland oo isku dhinac haddii aan fiiriyana qodobkan ugu dambeeyana magaalada Boorama ayaa ka jira banaanbaxyo waaweyn oo maanta ka dhacay iyadoona dad careysan ay si weyn ay u soo buuxdhaafiyeen marka loo fiiriyo haddii aan fiiriyana sidoo kale waxa maanta markaasi banaanbaxyo waaweyn ee ka dhacay magaalada Boorama halkaasi oo boqolaal qof ah oo ay isugu markaasi soo baxeen dadka banaanbaxa dhigayayna ayaa muujinayay caro iyo weliba sidoo kale cabasho la xiriira xiisadda isku markaasi xiisadda sii kordhaysa iyadoona ay ku dhawaaqayeen erayo taageero muujinayo dhinacyada kale wararkii ugu dambeeyay ayaana markaa tilmaamaya in xiisadda gobolka awdal ay weli markaasi kacsan tahay isla markaasna ay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo weliba sidoo kale feejignaan badan laga dareemayo deegaanada ku dhow Boorame odayaasha iyo weliba sidoo kale waxgaradka ayaa sidoo kale albaabada markaasi dadaalada ah ay markaasi gargaraacaya ee lagu doonayo sidii nabad loo soo dhaxdabaalin lahaa beelaha halkan sidaas ay ku wada dagaalamaya wali waan loogeen halka ay sida rasmiga ay ku dambeyn doonto xaaladda gobolka awdal iyo SL balse wararka soo kordhana saaxiibayaal waan idin la wadaagi doonaa haddii aad halkan la soo gaartay waxta qof walba wanaagsan waxaan asla kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gelisid muuqaalkan la garay si in shirkado saaxiibada wadaag oo kuma sidii daawashada muuqaalkan ma sanadin